xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadiisu tahay Galmudug ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxa uu halkaasi kulan gaar ah kula qaatay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda Galmudug ayaa xildhibaan mahad salaad uga mahad celiyay booqashada uu ku tagay deegaanada Galmudug sidoo kalena waxa uu ku booriyay inuu ka qayb qaato midnimada Soomaaliya iyo tan Galmudugba Sheekh Shaakir ayaa xildhibaanka ugu baaqay in booqashada deegaanka uu badiyo maadaama uu yahay deegaanka laga soo doorto xildhibaan soo dhawaad aad iyo aad ku faraxsanahay imaatinkaaga aad noo timid deegaankii iyo dadkaaga aad soo booqatay aadaan ugu faraxsanahay soo dhawaaw maasha Allah kaana alxamdulilaahi rabbil caalamiin markastana ijtimaacaas iyo wanaagaas iyo khayrkaas iyo inaan ka wada shaqeynaan isku ognahay iyo midnimada Soomaaliya yani wanaageeda iyo sharafkeeda iyo Galmudug midnimadeeda inay mid noqoto oo aysan u noqonin kala qodob dambe iyo wax dambe aysan u noqon ayadaasna waa isku ognahay Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa biidhnillaahi kariim inaad ku soo noqon doonto in la hadii alla yiraahdo mahad maxamed salaad oo horey u ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada dowladii uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud haatana ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa la sheegay socdaalkiisa Galmudug inay qayb ka tahay mashaariic uu ka fulinayo halkaasi iyo ka qaybgalka shir ay beeshiisu ku yeelan doonto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maxamed cabdullaahi baxnaaniye TV-ga codka bariga Afrika Muqdisho